بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeyn madaxda dawladda ee nala joogta maamulka jaamacadda hormuudiyada kulliyadaha macallimiinta waalidiinta ardada sharafta leh maanta halkan munaasabadooda aan u joogno dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaata islaamka marlabaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii maanta waa maalin weyn, waa maalin caado inoo ah oo sanad walba jaamacaddu ay u samayso ardayda kaalimaha sare ka gasha imtixaanka semesterka. waxaan rabaa marka hore mahadcelinta ugu horeysa inaan siiyo ardadaas oo dadaal halkaa ku sawiran, magacyadooduna halkaa ku qoran yihiin, oo dadaal dheeri ah muujiyey. waxaan rabnaa inaan iyagana ku markhaati gashano waalidkood in ardadaasu ay dadaaleen runtii wixii aan ka filaynay iyo maaragtay dadaalkii la geliyeyna runtii iyo mirihii iyo tacabkii idinkuna aa geliseen ay soo bandhigeen. waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo hormuudiyada kulliyadaha iyo macallimiinta iyo xafiisyada jaamacadda ugu horeeya xafiiska imtixaanaadka oo runtii shaqo muhiima ka qabtay in ardaydaas la hubiyo aqoontooda, in la hubiyo fahamkooda, in la hubiyo yani tacliinta ay qaateen, iyo in la soo bandhigo oo la ogaado ardaygii ugu sarreeyey. waxaa jirta wax maahmaah carabi oo waxaa jira uu sheego nin shaacira oo la yidhaahdo mutanabbi, wuxuu dhahaa biqadri kadika tuktasabu almacaali waman dalaba alculaa sahra allayaali. qofku waxa uu dadaalka u sameeyo ayuu dad kaga hormaraa. iskama timaado qofku inuu yidhaahdo qofkaas kaalinta koowaad buu galay, qofkaas kaalinta labaad buu galay, iskama timaado. waxay ku timaadaa dadaal, waxay ku timaadaa in qofku soo jeed badan uu sameeyo, in uu wax badan akhriyo, in uu macallimiintiisa iyo maaragtay waqtigii loogu talagalay jaamacadda inuu yimaado, inuu ardada kale kaga duwanaado wax allaale wixii arday wanaagsan laga rabay. arrinta kaloo aan rabo farxadda aan rabay inaan idiin sheego waxa weeye ardada halkaa ku sawira waxaa ku jira arday markii afraad soo noqonaysa oo kaalintaa soo gelaysa. arrintaas marka waa arrin kaloo farxaddeeda wadata. waxaa la yidhaahdaa qofku inuu hal mar guulaysto oo halkaa ka soo muuqdo, markaa waxaa la dhihi karaa qofka waa guulaystay. laakiin inuu mar kasta halkaa ka soo muuqdo macnaheedu waxa weeye darajadii qofkaas uu joogay kama dhicin. qofku waxyaalaha daran waxa weeye maanta intaad meel sare tagto inaad hoos u socoto, soo maa? waxyaalaha bulshadeenna haysta oo maanta waddankeenna haysta oo maaragtay afooyinkana haysta waxaa ka mid ah dad baa inoo soo kaca. dadkaas inoo soo kaca waxaa laga yaabaa in maaragtay waxyaalo fara badan baa iska jira. marka waxaan rabaa inaa horta ardada maasha allah u dhahdaan, ilaahay ha barakeeyo dadaalkooda, ilaahay ha u barakeeyo. waxa weeye marka maanta intaasaynu isugu nimid inaynu sidaa u maamuusno, sidoo kalena aan dareensiinno in maaragtay dadaalkoodaas aan ku faraxsannahay.